jacaylku agteeda ayuu ku dhashay balse adiga agtaada ayuu ku dhintay waxaad u tustay nolol aad u xanuun badan waxaan agtaada ka bartay dhibaatada jacaylka uu leeyahay intaan agtaada joogay oo aan agtaada waqti ku qaadanayay waxaad u tustay qaraarka jacaylka uu leeyahay anigoo kaa soo doonay farxad iyo macaanka jacaylka uu leeyahay waxaan agtaada fadhiyey adigoo qof kale xiriir la leh waxaan waqtigayga ku dhameeyey adigoo i qayaanayo balse waxaan ahaa qof iska daacad ah hadal walba oo dhahda iska aaminayo maxaad ii qayaantay maxaan kaa hagraday xumaan aan kugu sameeyey miyaa jirto maxaa silcaan oo dhan aad ii marsiisay waxaan geed gaaban iyo geed dheer aan u fulay sidaan adiga kugu heli lahaa aniga waan ku aaminay waxaan ka dhigtay qof mas'uulka ah noloshayda waxaan qof ka maqlay weligay kuma weydiin sidoo kale waxyaabaha qaar marka ay indhahay ku qabtaan waan beenaysan jiray si aan u weyneeyo jacaylkan adiga kuu qabo balse adiga maxaad samaysay markaad igu lahayd dunidan adiga keliya ayaan kuugu jecelahay qof aan adiga ahayn kama rabo laakiin qof kale ayaad laabtaada ku haysatay oo aad waqti la qaadanaysay wehel runa ka dhiganaysay kamana xumi inaad aniga jecel baan ila jilaysay ruux kalena qalbigaaga uu lahaa balse waxaan ku xumay inaan noqdo saddexeeye jacayl haddaba maxaad runta iigu sheegi weyday haddii aadan ii noqon karin qof aan berito cidlada ka weheshan karo waxay ahayd inaad runta ii sheegto goor hore waayo ma jiro dunidan qof laba qalbi leh kuma kalifi lahayn haddana waxaan ku leeyahay ogow khiyaanadu waa god aad qodatay ha u malayn guul aad adiga gaartay natiijada caashaqiyo nasmiga uma samirtiyo macabka igu ka diro namiimkaada weheshataa natiijada caashaqiyo nasmiga uma samirtiyo macabka igu ka diro namiimkaada weheshataa